cabdimaalik muuse coldoon geesigii garabka waayey waddankayga xoog badan xeelaadu jecelahay waddankayga xoog badan xeelaadu jecelahay cabdimaalik muuse coldoon waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ee maamulka Somaliland. cabdimaalik muuse coldoon waxa uu ahaa haliyey u gargaara masaakiinta garabna siiya kuwa aanay dadka caawinin amaba aysan wax u qabanin. cabdimaalik muuse coldoon waxa uu muddo sanad ku xiran yahay xabsi ku yaala Somaliland halkaas oo lagu xukumay muddo 3 sanadood oo xabsi ah. sanadka hore ayay ahayd markii cabdimaalik muuse coldoon la xiray. waa kuma cabdimaalik muuse coldoon? cabdimaalik muuse coldoon waa asaasihii barnaamijka kaalmee kuwan ee dunidana caanka ka noqday, magaca Soomaaliyeedna kor u qaaday, una gargaari jiray kumanaan dhiban, kana damqan jiray dhibka dhammaan Soomaali weyn meel kasta ay ku nooshahay shanteeda geesood. waa ninkii aad uga soo horjeestay dulmigii lagu hayay walaalaha maamulka Soomaali galbeed ee Itoobiya gacanta ku hayn jirtay, haddana ay gacanta ku hayso, kana soo horjeestay dhibaatadii uu ku hayay Cabdi Ilay iyo xasuuqii ka dhacay Jaamac Dubad oo cid kale oo ka hadashay ilaa haatan ay jisan jirin. waa ninkiina baray amaba na tusay dhibaatada ka jirta jeel ogaadeen, xasuuqii badnaa ee ka dhacay iyo dhibaatadii farada badneed ee loo geystay dadkii ku sugnaa halka iyada ah. cabdimaalik ma uusan ahayn shakhsi kaliya ee waxa uu ahaa samafale iyo u gargaare bulsheed. muddo sanada oo u xirnaa, inkastoo dadkaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noloshooda kafaalo qaaday oo gacanta ku hayo, haddana dad badan ayaa xiristii cabdimaalik muuse coldoon ay dib u geysatay. waxa uu ahaa nin damqasho badan, gargaar badan, jecelna dhulkiisa iyo dadkiisa. maxaa loo xiray cabdimaalik muuse coldoon? waxaa loo xiray oo kaliya taa inuu tagay magaalada Muqdisho, ka damqaday dhibaatooyinka ka jira gudaha dalka Soomaaliya iyo dhammaan dhulka Soomaalida. ma jirto sabab cad oo cabdimaalik muuse coldoon la yiri sababtaas ayaad u xiran tahay. waxa uu ahaa ninkii kashifay ama burburiyay dhibaatada iyo hagardaamada ay dawladda Tigreega ku haysay dhulka Soomaalida, sababtayna inay burburto dawladda Tigreega iyo waliba tii Cabdi Ilay. waxa uu ahaa ninkii soo saaray dhibaatooyinka ka jira sida wasaga sheegay iskuul la yiraahdo Abaarso oo ku yaala Somaliland. dawladda Somaliland waxay ku eedeysay cabdimaalik inay soo xukumatay amaba ay soo xirteen dugsiga Abaarso, laakiin dugsiga Abaarso ee daasoo dhan uu iska fogeeyay. waxa uuna sheegay inuusan asaga cabdimaalik haysan, uusan soo xiranin. laakiin eedo kale oo la keenay ama la isku soo rakibay ayaa waxay ku yiraahdeen maxkamadda Somaliland cabdimaalik muuse coldoon waxa uu ahaa nin ka soo horjeeda Somalilandnimada. laakiin 5 sano ka hor cabdimaalik muuse coldoon nashiido u tiriyay oo uu leeyahay waan jecelnahay Somaliland, waana xubbigeena iyo nolosheena. Somaliland biladuna nuhibbuha na'shaquha bil arwahi nafdiha. Somaliland biladuna nuhibbuha na'shaquha bil arwahi nafdiha. sidee loo dhihi karaa haddana cabdimaalik muuse coldoon waxa uu ka soo horjeeday Somaliland? maya, haddii aad ka danqatid dhib walba oo ka dhaco Soomaaliya macnaheeda ma ahan in aad tahay qof ka soo horjeeda maamulka uu hoos joogo. cabdimaalik muuse coldoon waxaa la sheegay inuu dhib badan ku mutaysto xabsiyada, la rafaadiyo dadkii uu gurman jiray ama Soomaalida uu damqan jiray, iyo madaxdii dhammaanteedna wax ka hadla oo u gurmaday cabdimaalik ilaa haatan ma jirto. cabdimaalik muuse coldoon waxa uu ahaa haliyey iftiin u soo baxay masaakiinta iyo ummadda Soomaaliyeed, laakiin iftiinkaas si dhaqsi leh ayaa markiiba waxaa loo damcay in loo damiyo. cadowguna mar walba waxa uu jecel yahay inuu isku kaana diro oo iftiinkii noo soo baxaba uu mar walba damiyo. cabdimaalik muuse coldoon caalamka ayuu geyn jiray inaan nahay dad wanaagsan, dhaqan wanaagsan, bulsho ah, isku duuban, mar walbana iscaawiyo. telefishinka Al Jazeera muuqaal uu ka sii daayay 2 sano iyo 3 sano ka hor oo uu barnaamijkiisa caan ka baxay u caawi kuwan uu waraysi ka bixinayo, aad ayay ula yaabeen sidii ay Soomaalida isku caawiyaan iskuna jecel yihiin. cabdimaalik muuse coldoon وهو كما ذكرنا من أرض الصومال ليحدثنا عن مبادرته كالمي كوان أو ساعد هؤلاء. نطقتها بالشكل الصحيح على ما أعتقد. cabdimaalik muuse coldoon ma ahayn shakhsi hal meel ku kooban, waxa uu ahaa shakhsi ka wada dhaxeeya Soomaali oo dhan, meel kastoo ay joogto, ama Soomaalidan Kenya ha ahaato, ama Soomaalida Itoobiya ha noqoto, ama tan Djibouti ha noqoto, ama tan Soomaaliland ama tan Soomaaliyaba ha noqotee, shantii Soomaaliyeed kuwooda dibadda jira iyo kuwooda dalka joogaba waxa uu ahaa qof u gargaaro oo caawiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uu ahaa nimco uu noo soo diray cabdimaalik muuse coldoon. 5 sano ka hor
cabdimaalig muuse coldoon mar xabsiga burco uu joogay muuqaal uu duubay nin laga soo sii daayay xabsiga burco ayaa waxa uu sheegay in uu xirnaa muddo 10 sano ah muddo 10 sano ka badan waliba ninkaas isaga waxa loo haystay inuu geystay dil cid magta ka bixisana ma jirin cid raacday oo ninkaas raadisay oo familkiisa ana ma jirin xukun toos oo ninkaas ku dhacayna ma uusan jirin السلام عليكم magacaaga faysal طبعا muddo dheer baad xidhneed 10 sanad xidhneed saanu ka warqabno waxaad nooga warantaa maanta waa lagu soo daayay dareenkaagu waa sidee waan gartay markii hore saad ahayd waxaa laga yaabi lahaa cabdimaalig muuse coldoon haddii uu sii joogi lahaa ama xor uu sii ahaan lahaa inuu ilaahay subxaana watacaala ku sababi lahaa nin sidaas oo kaleeto u dhibanaa waxa uu ahaa u gargaaraha kuwa aanan garabka haysan cabdimaalig muuse coldoon waxaa lagu xukumay cabdimaalig muuse coldoon muddo 3 sano ah 3daas sanana nolosha aad bay u adag tahay runtii xabsiga lamana oga meel uu cabdimaalig muuse coldoon uu joogo waana la warwareejiyaa sida la sheegay cabdimaalig oo marba meel ayaa la geeyaa inta badan xabsiga dadka lagu xiro Soomaaliland waa xabsiga ugu caansan waa xabsiga Mandheere ee yiraahdaan xabsigaas ayaa la geeyaa waa xabsi aad u nolol adag cabdimaalig muuse looma ogola in loo imaado sida la sheegay dadka ma imaan karaan cabdimaalig noloshiisa runtii waa nolol aad u dhib badan muuse cagjar oo hadlay madaxweynaha Soomaali galbeed oo hadlay waxa uu sheegay cabdimaalig in uu ahaa haliyey qaran oo laga xiray ummadda Soomaalida oo dhanba una ahaa tiir u taagan ummadda Soomaaliyeed ayna u doodi doonaan oo mar kale ku laaban doonaan sida hadalkiisa ka cad mar ay tageen oo dib Soomaaliland ugu laabteen laakiin waa la soo diiday sidaan oo kale cabdimaalig muuse coldoon 2 sano ka hor ayaa loo xiray laakiin dawladdii markaa jirtay ee dawladdii Siilaanyo ayaa soo deysay cafis madaxweyne ayaa lagu soo daayay waxaa lagu xiray cabdimaalig muuse coldoon gudaha Soomaali galbeed waxa uu ahaa ninka aad uga dhidhiyay jaamac dubad xasuuqii baanaa ee loo geystay ummadda Soomaaliyeed waxa uu tiriyay gabay qeyro badan oo leeyahay xamar aadisteedii xamar aadideedii xornimada u hadalkii xamar aadideedii xornimada u hadalkii xabsi baan ku galayo xalkeenu waa kaa xabsi baan ku galayo xalkeenu waa kaa bandar xeebaheedii xasuustii ku laabnayd bandar xeebaheedii xasuustii ku laabnayd tegitaan xagaageed yaa ku sheegay xaaraan gabay aad u qeyro badan ayuu ahaa cabdimaalig waxaan u rajeynaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xorriyadiisa dib u siiyo dhammaan inta muslim oo xiranna ilaahay subxaanahu wa tacaala xorriyadooda dib ha u siiyo